كودا مركا اي سوجيديان قولها وزيردو فقرد أفراد وعو مقعابيا حلك وزيرك كواد وعو حلك كقاضيا أما كلا ديريا حكومة فيدرالك هدي اي ويدو عدك كالسوليدا قولها شعبك اي بارلمانك فيدرالك اوها عده الديريا بقولك بكنتن يكو فقرد الشنات وعو حلك كقاضيا وزيردا وزير الدولياشا وزير كحيغاندا مركو سوجيدي وزير ككواد فقرد اللحاد وعو صحيحة شرعية أو سواء سيحيو بارلمانك فيدرالك سي الشرعي لوغا ديغو فقرد التضبات وعو فرا قولها شعبك فقرد السديدات وحو لحظ لا فدق قاركا قولها شعبك سند كيبا مر فقرد السقالات وحو لحظ لكرا قولها شعبك مركز طوء أكالي فقرد الطبانات وحو مقعابا قدوميها محكمة دستورية محكمة السر قرصورياشا كالي هير فيدرالا سوجيدين تقوديك أذيك قرصورك كدب فقرد كوية طبانات وحو مقعابا يا جغوين كسر حكومة فيدرالك هي مضحدة هيئة الدولة فيدرالك مركا أو سوجيدي قولها وزير ردو فقرد اللبية طبانات وحو مقعابا يا جغوين كدنجيرياشا هي قنسولية قود قنسولية قود مركا قولها وزير ردو سوجيدي فقرد سدحية طبانات وحو قابلة دبلوماسيين تشيشي هي وكيلة قنسولية دلالك شيشي فقرد أفرية طبانات وحو قدونسية أبال مارينتا حشمد قرنك مركو قولها وزير ردو سوجيدي فقرد شانية طبانات مدعوينوه وحو كالاديري كرا قولها شعبك مركا اي مددي سحيلكو دماتو سي دورشا يو آدان فقرد اللحية طبانات إنو عفس أفيديو أما عقاب كدم دنبيليال مركو كتلقاتو قدق أذيق قرصورك فقرد تضبية طبان إنو صحيحو هشيسيدة عالمية كدب مركي قولها وزير ردو سوجيديو قولها شعب كنا عنسيحيو قضب كسقاشن يكواد مدد حلك مدحوينها جمهورية فيدرالك مدحوينها جمهورية فيدرالك وحو حلك هاينيا مدة 4 سنة أو كبلابتا مالنت حلك اللو داريو سيدا كحسن قضب كسقاشن يلحاد دستور كان قضب كسقاشن يلابات محكمة دينتا يا ماموس كقادستا مدحوينها جمهورية فيدرالك فقرد كواد حلك قادة مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية وعد سوجيدين كرقولها شعب كمركا لغو ايديو خيانة قرن حد قذب علوس او دستورية اماكو حد قذب شرعية كالاء جمهورية فيدرالك الصومالية فقرد اللبات هندساء حلك قادسة مدحوينها جمهورية فيدرالك وعقولها هركيني كرأوغو يران 3 meelood meel xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxkamadda dastuuriga ayaa galaysa dhageysiga eedeynta inay sal leedahay faqradda saddexaad haddii go'aamiso maxkamaddu inay eedeyntu sal sharci leedahay 3 dalool laba ee labada aqal ee baarlamaanka ayaa madaxweynaha xilka ka qaadaya faqradda afraad haddii madaxweynaha xilka lagaga qaado si waafaqsan faqradaha 1 ilaa 3 ee qodobkan waxaa xilka madaxweynenimo la wareegaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka qodobka 93aad iscasilaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweynuhu wuxuu u gudbinayaa istiqaaladiisa baarlamaanka federaalka isaga oo marsiinaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka qodobka 94aad kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka
faqraddiisa koowaad haddii madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama caafimaad darro ama sabab kasta oo kale darteed uusan awoodin inuu guto xilkiisa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa xilkiisa sii qabanaya ilaa inta uu madaxweynuhu xilkiisa dib ugu soo noqonayo faqradda labaad ku-xigeenka koowaad ee guddoomiyaha baarlamaanka ayaa si ku meel gaara u haynaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka inta uu guddoomiyaha baarlamaanku sii haynayo xilka madaxweynenimo qodobka 95aad bannaanaanta xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka haddii uu bannaanaado xafiiska madaxweynaha waxaa qabanaya xilka guddoomiyaha golaha shacabka ilaa laga soo dooranayo madaxweyne cusub muddo aan ka badnayn 30 maalmood gudahooda faqradda labaad haddii madaxweynaha uu ku dhaco xanuun aan ka raysasho lahayn muddo ka badan 3 bilood oo ay caddeeyaan xeeldheerayaal caafimaad waxaa sharciyan bannaanaanaya xilka xafiiska madaxweyne faqradda saddexaad doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka beddelaya madaxweynaha mansabkiisii bannaanaaday waxaa loo marayaa habraaca doorashada madaxweynaha ku xusan ee qodobka 89aad faqradda afaraad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka lagu doorto si waafaqsan faqradda saddexaad ee qodobkan wuxuu dhammaystirayaa muddada xilhaynta ee u harsan madaxweynihii ka horreeyay bismillahi rahmaani rahiim qodobka 96aad dhaarinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka inta uusan xilka bilaabin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu baarlamaanka قضى ما بالله ساشي نحن راح نلعب ما يساشي عشان تسبيك بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكحومها إن إذا كده حق له أخرسكي دستورك وضدك آدي وحي سيناين لكن waxaan rabaa in aad la socodsiiyo meelaha qaar ah waxay ka bilowdeen in lacagtii dadka hotel iyo DSA-ga in la baxsho qaybinteeda waa ka xunnahay waxay ahayd in la bilaabo qaybiska saddexda galabnimo saacad 45 daqiiqo ka dambayso laakiin hadda almost waa la bilaabay waxaan rabnaa ergada sharafta leh in ay waxaan ku joojinaynaa akhriska halkan waxaan bilaabaynaa bari subax inta noo harsan halkaas aan dhammaystiraynaa ilaa 40 page ayaa noo harsan waxaan rabnaa ilaa 40 article ilaa 40 qodob noo harsan ayagana bari subax ayaan dhammaystiraynaa inta noo harsan intii aan loo kala bixin breakout sessions marka waxaan idinka codsanaynaa in qolalka classroomska classroom 1 classroom 2 classroom 3 classroom 4 waxaa ka socda lacag qaybin waxaana lagu qaybinayaa kaarka la yiraahdo delegate-ka kaarka ergada marka kaarka ergada ayaa lagu qaybinayaa numberka ugu dambeeya
waxaa meesha jooga idi tusi doona kaarka iyo nambarka aad ku qoran tahay iyo qolka aad lacagtaada ka qaadanayso. waxaan rabnaa inaan saas ula soconno, waana mahadsantihiin. Thank you very much. كل wata daawadayaal waxaa si toos markaasi nagala socotaan hoolka shirarka iskool buluusiya oo markaasi maanta uu ka dhacay shirweynaha lagu ansixinayo dastuurka Soomaaliya maalinkii afraad. maanta inta badan sida aad daawanayseen waxay ergada loo akrinayay dastuurka, waxaana moodaa in inta ugu badan ee dastuurka maanta markaasi halkan lagu akhriyay. waxaan jecelahay iminka markaasi halkan joogto wasiirka haweenka dowladda federaalka Soomaaliya wasiir waa telefishinka qaranka si toosa laga daawanaya, bal si guud u dulmarto halkan wixii ka dhacay. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaah baa mahadda iskale, hawsha si wanaagsan ayay u socotaa. waxaad arkaysaa in loo akrinayay ergada ku qoran dastuurka si ay u fahmaan. dastuurkan wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo runtii muran iyo isfaham darri dhaliyay. marka waxaan uga dan lahayn in bulshada ka qaybgalaysa kuwa adduunka naga daawanaya in ay dhageystaan ama ay fahmaan qaabka uu dastuurku u qoran yahay iyo qodobada iyo qaabka ay markaa ay u fahmi lahaayeen ergada si dooda markaa ay ugu fududaato haddii la yidhaaho ay hawshooda guda galaan. hawshan muddada 9 cisho loo qabtay iminka maalinka afraad iminka marana 5 cisho baa ka hartay. bal waqtigaas inay ku soo runtii hawsha loo dhiibay ergada waxay tahay waxyaabaha xasaasiga ay u arkaan inay ayaga fikradahoodii ay ku biiriyaan. sidaad ogtahayna dastuurkan weli waa qabyo oo waxaa ka shaqayn doona baarlamaanka cusub ee markaa la samayn doono. marka fursadda waxay tahay in bulshadina ay ka warhayaan waxa meesha ku qoran, fikradahooda ay ku biiriyaan si markaa loogu gudbiyo xubnaha kale baarlamaanka imaan doona si ayagana ay uga dhiibtaan fikradoodii qaab dastuur inay uga shaqeeyaan. wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya Marin Aweys aad baad mahadsan tahay. assalaamu calaykum. sidoo kale waxaa halkan joogay wasiirro ka socday dowlad goboleedka Puntland waa galmudug haddii aan qaldanayn. mudan wasiir waa telefishinka qaranka si toos ayaa adduunkan lagaga daawanayaa, bal maanta halkan waad joogtay, maxaa kaaga baxay? runtii waa maalintii ugu horreysay horta aan ka soo qayb galo. aad iyo aad ayayna muxuu ahaa ii sheegay ii dhiirigelisay in Soomaalida maanta ay uu ka muuqdo bisayl aad iyo aad muxuu ahaa ii sheeg u wanaagsan ama u sarreeya, gaar ahaan ergada Soomaaliyeed oo halkan isugu yimid oo wakiilka ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan. marka waxaan rajaynayaa in ilaahay fududeeyo oo muxuu ahaa ii sheeg Soomaaliya ay ku dambayso dawlad rasmiya oo aynu u horseedaan mas'uuliyaddeedana maanta ay madaxa uu ka saaran yahay ama garbaha uu ka saaran yahay ergada Soomaaliyeed oo halkan jooga oo ka kooban ummadda Soomaaliyeed oo dhan. waxaana maanta fursad waxay haystaan ah in ay la mid tahay fursaddii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL in baalkii dahabka ay ka galeen mid la mid ah inay haddana ay ka geli doonaan. wata mudan wasiir aad baan kaaga mahadcelinaynaa. wata daawadayaal hoolka
shirarka iskool bulisiya ayaanu ku sugannahay barnaamijka inta ayaanu kusoo gabagabinaynaa waxaan jeclahay barnaamijka inta uu socdo telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa si toosa uga daawan doontaan ilaa ugu dambeyn dastuurka soomaaliya la ansixinayo waxaan halkan markasta diyaar ku ah tiim ka tirsan telefishinka qaranka soomaaliyeed oo markaasi si toosa markasta idinkugu soo gudbinaya howlkan iskool bulisiya wax kasta oo ka dhacay iyo dastuurka soomaaliyeed maadaama ergadan un iminka loo qeybiya xamar joogta in dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyaguna markaasi waxay ka daawan doonaan oo ay kala socon doonaan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyagoo dhegaysanaya oo daawanaya dastuurka loo akhrinayo ergooyinka ansixinaysa dastuurka soomaaliya aniga iyo asxaabta kale ee telefishinka qaranka soomaaliyeed ee ku sugan howlka shirarka iskool bulisiya intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa intaynu dib u kulmi doono beri aroortii sidaa iyo nabadgelyo